waxa uu markasta ku celcelin jiray isagoo ku faanaya yoolka noloshoodu waa in aan jibiyo sanadkan iga hor yimaada. waxa uu ahaa feeryaankii ugu da'da yaraa ee ku guulaysta biladda u sarreysa ciyaaraha culayska ee feerka 20 jirkiisiiba, waxaana lagu magacaabay ninka birta ah feerkiisii bidixdaha ahaa ee awoodda badnaa aawadeed, taasi oo loogu magacaabay in ay tahay feer bidixeedkii ugu awoodda badnaa taariikhda feerka. waxaa la oran jiray Mike Tyson, isagoo markii uu islaamay kadib la baxay Malik Tyson. Mike Tyson ama Malik Tyson waxa uu ku dhashay magaalada New York bishii 7 sanadkii 1966. waxa uu ku soo barbaaray nolol quus ah isagoo aabihii uu ka tagay yaraantiisii, waana sababta uu u qaatay magaca qoyska hooyadii. waxa uu la soo barbaaray kaan ciyaaryahanno ah, waxaana isagoo aad u daayar uu ku soo baxay feeryahanada awoodda leh. waxaa muuqihiisa awoodda leh iyo qaab-dhismeedka jirkiisa ay soo jiiteen tababarihii feeryahanada ee halyeyga ahaa Kaz Dameto, isagoo markiiba gacanta ku dhigay mustaqbalka Mike Tyson, kana yeelay inuu u bedelo ugaarsade feeryahan ah oo bilado badan ku guulaystay isagoo aad u daayar. waxa uu Tyson ahaa mid ka xidhiirtay iskoorro caalami ah oo aanay gaarin cid ka horreysay taariikhda feerka. waxa uu noqday ciyaaryahaankii ugu da'da yaraa ee ku guulaysta suunka dahabka. waxa uu dheelay 58 ciyaarood oo caalami ah, 6 ka mid ah waa laga badiyay, 52 kalena waa uu ku guulaystay, waxaana ka mid ah 44 dheelood oo halka feed ee dhammaadka ah uu ku guulaystay. majalada Daringis Magazine oo 2003 soo saartay 100 feeryahan ee ugu taariikhda weyn dunida feerka, waxa uu ka galay booska 16aad ee feeryahanada caalamka. dhimashada macalinkiisii Kaz Dameto ka gadaal ma aanu sii jirin sawirka qurxoon ee guulaha u saaxiibka ah ee uu haystay Malik Tyson. waxa uu garaafka noloshiisa u soo hoobtay meel hoose isagoo isku xigsaday guuldarrooyin, in uu ku dagaalamo wadooyinka, soo jeed, iska tumasho iyo guurar fashilaad ku dambeeyay, ilaa uu ka galay xabsiga kadib markii lagu eedeeyay in uu faraxumeeyay Desiree Washington oo 18 jir ahayd. kiiskaas oo ahaa mid loogu talagalay in nolosha Tyson loogu bedelo mugdi iyo xabsi, waxaa lagu xukumay 6 sano oo xabsi ah, waxaana uu xirnaa 3 sano. muddada uu xabsiga ku jiray ayuu noloshiisa aad u bedelay isagoo bartay diinta Islaamka, ogaadayna in diinta Islaamku ay tahay tan ka saari doonta dhibta iyo hoos u dhaca kan uu mutaystay. markii uu ka soo baxay xabsiga waxa uu baahiyay inuu si toos ah u qaatay diinta Islaamka, isagoo u bixiyay naftiisa Umar al-Abdulaziz, balse waagii dambe iskala baxay Malik Tyson. waxa uu go'aansaday inuu soo booqdo dhulka barakaysan markiisii ugu horreysay ee uu dul tagay qabriga Nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxa uu ishayn waayay oohin, isagoo sheegay inuu maamuli kari waayay naftiisa, waxaana uu marar badan isaga daba laabtay booqashada dhulka barakaysan. waxaase waqtigaas ay dad badan aad ula yaabanaayeen sida uu Tyson isugu bedelay shakhsiyad fiican leh, mutawaadic aad u dhimrin badan ka gadaal islaamnimadiisa. waxaana uu ballan kula galay naftiisa inuu ilaashado shantiisa waqti, nolol sahlanna uu iskala noolaado qoyskiisa oo islaamnimada qaatay dhammaantood. Malik Tyson waxa uu yiri, runtii xabsigii aan galay waxaan ka soo faa'iiday in aan barto diinta Islaamka oo runtii ahayd mid bedeshay noloshayda. waxaan bartay sabir iyo dulqaad aad u sarreeya, taas oo ka yeeshay mid leh dhadhan kale noloshayda. waxaan bartay in aan Ilaahay u xamdinaqo xitaa haddii ay jiraan dhibaatooyin. waxa uu sii raaciyay inaan noqdo muslim, taas ma ahan micnaheedu inaan noqday feeryahan, balse islaamnimadu waxa iga yeeshay in aan noqdo qof ka fiican sidii hore. waxa xusid mudan in wixii ugu horeeyay ee uu qabto markii uu xabsiga ka soo baxay ay ahayd inuu aado masaajid si uu soo tukado salaatu shukri oo ah inuu u mahadnaqo Ilaahay tusiyay wadada saxan. waxaana markaasi masaajidka ku soo dhaweeyay halyeegii feeryahanka ahaa Muhammad Ali Clay, Allah ha u naxariistay, iyo laacibkii kubadda kolayga Kareem Abdi-Jabbar. Malik Tyson feeryahan qab iyo isla weyni badan, ilaa muslim aad u samafal badan, waa mid ka mid ah micnaha nolosha isbeddelka leh ee ay ku barayso ku dhaqanka diinteena Islaamka. fadlan ugu dhiirigeli subscribe iyo share, deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh.